Niwarare! Niwarare! marka hore waxaan rabaa inaan ku hormaro siyaasiyiinta ka soo jeeda dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. talada dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya halkanay taalla ee xamar ma taal. koonfur galbeed waxay ka mid tahay dawlad goboleedyada ee federaalka ay ka mid tahay. waxay leedahay nidaamkeeda dawlad goboleed ay leedahay, dastuurkeeda ay leedahay, institutionadeeda oo dhammaystiran, baarlamaanka hadduu yahay ilaa garsoorka fulinta waxayda way u dhammaystiran yihiin. waa lala socdaa Soomaaliya khilaaf dheer kadib Soomaaliya waxay isku raacday in wax lagu qaybsado nidaamka federaalka. nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa ama dastuurkii lagu heshiiyey 2012 wuxuu dhigayaa dawlad goboleedyada si gaar ah ayagu inay isu maamulayaan oo howlahooda ayaga gaar ay u yihiin. dawladda federaalka waxay leedahay mandate dastuurka uu siiyey oo dastuurka uu qorayo, dastuurka 2012 dawlad goboleedkan wixii ay iska lahayd dawladda federaalka waxaan leenahay inaan lagu soo fargelinin. dadka kale oo raba siyaasadda inay ka qayb qaataan ama halkan ay tartamaan, talada halkan ay taalla, halkan ha la yimaado. waa la socotaan dastuurka wuxuu qorayaa 2 heer dawladeed. 2 heer dawladeed midna waa xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha dawlad goboleedyada oo hoos imaanaya dawladaha hoose. dawladaha hoose doorashooyinkooda waxaa qaban kara dawlad goboleedyada ee xukuumadda federaalka dawladaha hoose ma hoos tagaan. tusaale haddaan ka soo qaadanno maalan gobolka banaadir gobolka banaadir dawladaha hoose doorashadoodii waa la qabtay. dastuurka laakiin markaa fiirisaan waxaa arkaysaan xukuumadda federaalka dawladaha hoose ma hoos tagaan. haddii gobolka iskiisa uu taagan yahayna in muddaa loo ogol yahay in uu hoos tago xukuumadda federaalka. marka waxaan leenahay keliya ma aha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya, dawlad goboleedyada oo dhan xuquuqda ay leeyihiin inay ismaamulaan in loo daayo xuquuqdooda sidooda loo daayo. qodobka kale xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hadda joogo waay waddankan waa ay arigaa u tahay dhibaatooyinkii ay soo mareen bulshadan ku dhaqan dawlad goboleedka koonfur galbeed waa la socotaa. haddaan wax la tarayn oo la taakulaynayn oo dhinaca oo bini aadamnimada lagala shaqaynayn, dhisidda nidaamkeeda siyaasadeed aan lagala shaqaynayn, yaan ciidan inta la soo wada yaan la duminin. waxaa ka sii daran meeshan macluulaa ka dhici doonta. macluusha meeshan ka dhacdana berrito adiga ilaaha kugula xisaabtami doono, not Soomaaliya. dalkan saad u malaynaysid maa xasanow, waxaan ku leeyahay abaabulka hadda la wado iyo dadka hadda ku hor ordaya xukunka de ilaaha bixiya. ilaah wuuna sheegay wuxuu yidhi nabigaa la yidhi qul illaahuma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa. cidna xukun xoog kuma qaadan karto. waxaan leenahay marka miirkaa soo noqdo dawlad goboleedkan xuquuqdeedii wixii ay lahayd oo dawlad goboleed ahaan ay u lahayd ay fushanaysaa. dadka ku raadinaya in dad la dilo madaxweyne lagu noqdo ama raba hadda weerar inay soo qaadaan oo ay soo weeraraan dadkan meesha joogo oo ayagaba. tan kale ugu muhiimsan oo adigu laftaadii aad la socotid madaxweyne, muddo xileedkii in badan annaga waxaan u soo noqnoqonayna oo aan kala hadlaynay waxay ahayd in dawlad goboleedyada doorasho ay galaan, khaasatan dawladda koonfur galbeed ay doorasho gasho. hadda waxaa la marayaa muddo xileedkii mar hore uu soo dhammaaday, tii federaalkana muddo xileedkeeda wuu dhammaaday.
marka labadii heeroo dawladeed wayba isku kordumi rabaan baad marka waxaan leenahay in waqtigan yaroo hadda adiga ku haray si hoose aad u fikirtid oo laga daayo dadkan in loogu soo duulo meel maxaa la yidhahdaa ciidan lagu ururiyay ay hor ordayaan marka hore waxaan rabaa inaan ku hormaro siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya talada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya halkan ay taalla ee xamar ma taal koonfur galbeed waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada ee federaalka ay ka mid tahay waxay leedahay nidaamkeeda dowlad goboleed ay leedahay dastuurkeeda ay leedahay institutionadeeda oo dhammaystiran baarlamaanka hadduu yahay ilaa garsoorka fulinta waxayda way u dhammaystiran yihiin waa lala socdaa Soomaaliya khilaaf dheer kadib Soomaaliya waxay isku raacday in wax lagu qeybsado nidaamka federaalka nidaamka federaalka wuxuu dhigayaa ama dastuurkii lagu heshiiyay 2012 wuxuu dhigayaa dowlad goboleedyada si gaar ah ayagu inay isu maamulayaan oo howlahooda ayaga gaar ay u yihiin dowladda federaalka waxay leedahay mandate dastuurku uu siiyay oo dastuurku uu qorayo dastuurka 2012 dowlad goboleedkan wixii ay iska lahayd dowladda federaalka waxaan leenahay aan lagu soo fargelinin dadka kale oo raba siyaasadda inay ka qayb qaataan ama halkan ay tartamaan talada halkan ay taalla halkan hal yimaado waa la socotaan dastuurku wuxuu qorayaa laba heer dowladeed labada heer dowladeed midna waa xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha dowlad goboleedyada oo hoos imaanaya dowladaha hoose doorashooyinkooda waxaa qaban kara dowlad goboleedyada ee xukuumadda federaalka dowladaha hoose ma hoos tagaan tusaale haddaan ka soo qaadano maalan gobolka banaadir gobolka banaadir dowladaha hoose doorashadoodii waa la qabtay dastuurka laakiin markaa fiirisaan waxaa arkaysaan xukuumadda federaalka dowladaha hoose ma hoos tagaan haddii gobolka iskiisa uu taagan yahayna in muddaa loo ogol yahay in uu hoos tago xukuumadda federaalka marka waxaan leenahay kaliya ma aha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya dowlad goboleedyada oo dhan xuquuqda ay leeyihiin inay ismaamulaan in loo daayo xuquuqdooda sidooda loo daayo qodobka kale xasan sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hadda joogo wadankan way argaa u tahay dhibaatooyinkii ay soo mareen bulshadan ku dhaqan dowlad goboleedka koonfur galbeed waa la socotaa haddaan wax la tarayn oo la taakulaynayn oo dhinaca oo bani aadamnimada lagala shaqaynayn dhisidda nidaamkeeda siyaasadeed aan lagala shaqaynayn yaan ciidan inta la soo wada yaan la duminin waxaa ka sii daran meeshan macluula ka dhici doonta macluusha meeshan ka dhacdana berrito adiga ilaaha kugula xisaabtami doono not Soomaaliya dalkan saad u malaynaysid ma xasanow waxaan ku leeyahay abaabulka hadda la wado iyo dadka hadda ku hor ordaya xukunka ilaaha bixiya ilaah wuuna sheegay wuxuu yiri Allah qul nabiga la yiri qul Allahumma malik al-mulki tu'ti al-mulka man tasha cidna xukuma qaadan karto waxaan leenahay marka miirka soo noqdo dowlad goboleedkan xuquuqdeedii wixii ay lahayd oo dowlad goboleed ahaan ay u lahayd ay fushanaysaa dadka ku raadinaya in dad la dilo madaxweyne lagu noqdo ama raba hadda weerar inay soo qaadaan oo ay soo weeraraan dadkan meesha joogo ayagaba tan kale ugu muhiimsan oo adigu laftaadii aad la socotid madaxweyne muddo xileedkii in badan annaga waxaan u soo noqnoqonaynaa oo aan kala hadlaynay waxay ahayd in yani dowlad goboleedyada doorasho ay galaan khaasatan dowladda koonfur galbeed ay doorasho gasho hadda waxaa la marayaa muddo xileedkii
mar hore uu soo dhammaaday tii federaalkana madaxweynaadkeeda wuu dhammaaday marka labadii heeroo dowladeed wayba isku kordumi rabaanba hadda marka waxaan leenahay in waqtigan yaroo hadda adiga ku haray si hoose aad u fikirtid oo laga daayo dadkan in loogu soo duulo meel maxaa la yidhahdaa ciidan lagu ururiyay ay hor ordayaan dad raba mansab marka aad iyo aad u mahadsantihiin